السلام عليكم horay ma u ogeyd in habdhaqankaagu yahay natiijo ka dhalatay laba qodob waxa dhiiga kuu soo maray oo aad labada waalid ka dhaxashay oo loo yaqaano hiddo-sideyaal iyo wax kaaga yimid deegaanka aad ku nooshahay sidaa waxaa qabta culimada cilmiga aadanaha sidaas oo kale garaadkaaguna wuxuu ka samaysmaa labadaas qodob daraasad ayaa waxay tilmaamaysaa in qofku boqolkii 55 aqligiisa uu ka dhaxlay waalidkiisa waxaa jira doodo kale oo sheegaya in aqliga lagu kasban karo waxbarasho iyo waayo aragnimo waxaa jira tilmaamo ay wadaagaan dadka aadka u aqliga badan haddaba ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta qodobka koowaad waxay leeyihiin awood la qabsi oo aad u sareysa dadka aqliga badan waa dad dabacsan oo duruufaha markaas haysta la falgali kara waa ay la qabsadaan waayaha markaas ku xeeran ayagoona dan ka gelin ama aan gadaal u eegin caqabadaha iyo cadaadiska saaran aqliga waa sida aad karti ugu leedahay sidii aad habdhaqankaaga u bedeli lahayd si aad si hagaagsan ula qabsato duruufta deegaanka aad ku dhex nooshahay ama sidii aad u bedeli lahayd deegaanka aad ku nooshahay markaasi sidaa waxaa qabta cilmi baaris ay sameeyeen culimada psychology-ga qodobka labaad si weyn ayay isku xakameyn karaan culimadu waxay ogaadeen inuu xiriir ka dhaxeeyo aqliga iyo isxakameynta daraasaad 2009 la sameeyay ayaa dadka ka qayb galay waxaa la kala daroosiyay lacag yar oo hadda la siiyo iyo lacag fara badan oo mar dambe la siiyo natiijada waxay noqotay in dadkii doortay lacag badan oo mar dambe la siiyo inay ku guuleysteen kuwii naftooda xakameeyay oo samray ay darajooyin sarsare ka keeneen imtixaanaadka laga qaado dadka aqliga leh qodobka saddexaad waa ay maskaxdooda yihiin dadka aqliga leh dadka garaadka badan fikradaha iyo fursadaha cusub albaabka kama soo xirtaan culimada cilmu nafsiga waxay qabtaa in dadka maskaxda furan waa dadka aragtiyaha kala duwan raadiya oo cadeymaha si la'aan ah u maamuusa ama u miisaama sidaas ay tahay haddana dadka aqliga badan waxay ka feejigan yihiin nooca aragtiyooyinka ay aqbalayaan maskax garaad badan iskama yeesho wax waliba ilaa loo helo daliil xoog leh oo kaafi ah